jeclahay su-aashaas su-aal qiimo le weeye waxa khibradda la yidhaahdo oo adduunyadu ka macaashto waa faa'iido ama aqoon ka samaysanta taariikhda dadka ay soo mareen oo ku soo waaya arkana quburaa la yidhaaha waan soo sheegay oo muddaa iiga luntay wakti baa iiga galay qaadka waxaan jeclahay inaan u sheego dadka maanta ku mashquulsan oo dhallinyarada u badan inaan u sheego geedkaasi wuxuu ka qariyaa qofka dantiisa iyo xaqaa'iqa jira qofku mar haddii uusan ogaanin xaqaa'iqa jira ma guulaysan karo geedkaasi wuxuu la diriiraa ogaalka xaqiiqada dhabtaa qofku inuu ogaado wuxuu la diriiraa dantiisa qofku inuu u qumo oo ka faa'iidaysto wuxuuna la diriiraa hantida ugu wanaagsan ee qofka bani aadamka ilaahay siiyey hantida ugu wanaagsan aan isla ogaano qofkii ilaahay abuuray oo garasho u yeelay oo nool hantida ugu wanaagsan oo haystaa waa waqtiga wuxuu cadow ku yahay geedkaasi waqtiga waxaan jeclahay qofkii hadda ka hor uu waqti ka lumiyo Soomaaliya geedkaas inuusan waqti dambe iska gelin lama helayo faa'iido geedkaasi sameeyo oo adduunka taala lama helayo sababtu waxa weeye nafidoontay aan nacfi ahayn weeye waa wax aan nolosha kaalintii cuntada ka buuxinayn waa wax aan nolosha kaalintii cabitaanka ka buuxinayn waa wax aan nolosha kaalintii arratirka ka buuxinayn waana wax intaasoo la isku daray ka qarash badan waana wax aan qarashka kaliya kaaga tagaynay waqtigii cunaya aad wax kale ku kasbanay wax loogu mintiyo oo ku jira qof ka sheegi karaa ma jiro anoo cirro leh baan is arkay xaas lahayn ciyaal lahayn waxba haynin inta cirradu imanaysay waa moogaa xaqiiqadu iga qarinaya ka mid waxaan jeclahay arrintaas inay ku baraarugaan dadka walaalaheena oo weli ku dambeeya geedkaas aqal la sheegayaana ma jiro qofku inuu sida xoolay u daaqo dhallinyarada Soomaaliyeed haddii geedkaas maanta laga dhaafo waxaan aaminsanayaa amniga waddanku inuu hagaagi lahaa wuxuu daldalayaa geedku qofkiisa waa daldalayaa wuxuu u nugleynayaa shaqadii inuu layaco wuxuu u nugleynayaa inuu lacag ku beddesho mustaqbalkii iyo hawshuu hayay wuxuu u nugleynayaa inuu xamili waayo waardiyihii qaban waayo oo cadowgu ilaalinayay ka faa'iidaysto inta hurdo gorahay wuxuu qofka kartidiisa ka dhigayaa meel hoose xishoodka iyo karaamada qofku ku qiimaysan yahana waa sidoo kale waxay u badan tahay qofku inuu been ku doono qaadka qofna run kuma samayn karo dharaar kasta inuu lacag qaad ku cuno run inuu ku cuno qofna dharaar kasta ma samayn karo qofkii markaa beenaale xishood daran u noqonayaa aakhirka qofnimadiisa saasuu dhaawacaya